Assalaamu calaykum. Barnaamijkeena ma ogtahay waxaan ku soo qaadan doonaa maxaad ka taqaanaa El Recetas amaba qoslayaha reer Spain ee aadka kaaga qosliya. Haddaba intaanaynu barnaamijka gudagelin fadlan nagu soo biir oo subscribe saar channelka, gambaleelkana furo, like-na saar videoga, siina share garee si uu dadka lagu gaadho. haddaba intaanaynu barnaamijkeena u gudagelin fadlan aan yaro daawano bal qosolkiisa ninkan adiga in badan qosli doonee. Las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ninkan ayaa waxaa loo yaqaanaa Juan Joya Borja amaba Juan Joya Borja, kaasoo ay naanaystiisu tahay El Recetas oo af Soomaali noqonaysa qoslaye. ninkan ayaa nin u dhashay dalka Spain, noqonayana Spanish. waxa uu dhashay 5 Abriil 1956 kaasoo ku dhashay magaalo loo yaqaano Sevilla oo ku taala dalka Spain, kana soo jeedaan naadiga loo yaqaano Sevilla. masraxa ayaa looga yaqaana El Recetas amaba qoslaye. ninkan ayaa markii hore ahaa nin faqiira kaasoo qaban jiray shaqooyin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen warshad sibidh oo ka shaqayn jiray iyo cunto karinta. markii ugu horeysay uu telefishan ka soo muuqdo ayaa ahayd 2000, kaasoo uu ka soo muuqday show la odhan jiray El Vagamundo, kaasoo laga wareysanayay xaaladiisa nololeed. balse 2001 ayaa uu wadankiisa Spain ka noqday nin caan ah, kaasoo uu caanimada ku helay qosolkiisa ka qoslinaya. 2007 ayaa waxaa fiidiyoyo badan oo isaga ku saabsan ayaa la soo geliyay barta YouTube-ka amaba internetka, kaasoo halkaasna caan ka sii noqday. balse caanimada weyn waxa uu helay 2015 kaasoo uu ka qayb galay showgii loo yaqaanay El Vagamundo, isagoo oo dadweynuhu ay soo codsadeen in ninkaasi lagu casuumo mar walba. sidoo kale 2005 ayaa waxa uu ka qayb qaatay filim lagu magacaabi jiray Torrente Trip El Protector oo lagu metelay dalka Spain. sababta uu ninkani caan ku noqday ayaa ah qosolkiisa aadka kaaga qoslinaya ee ku soo jiidanaya. waxa uu geeriyooday 28 bishii Abriil 2021 kaasoo uu geeriyooday xanuun kaga dhacay xididada dhiigga.